cutubka afraad uqoondeynta sumadaha gaarka ah. Uqoondeynta sumada gaarka ah ee meydka ama xubnaha meydka ayaa aad muhiim u ah. Waxay ka caawisaa ka fogaanshaha lumidooda, waxayna sidoo kale wanaajisaa raadraaca, iyadoo sidoo kale ka caawisa aqoonsiga. Dhammaan macluumaadka la ururiyey lagana diiwaan geliyey shakhsi dhintay meydkiisa ayaa sidoo kale loo qoondeeyaa sumadahan gaarka ah. Waa muhiim in horey loogu heshiiyo habka caadiga ah ee sumadaynta. Tan waxaa ka mid ah abuurista sumad adag oo aan mar kale la samayn karin, iyadoo la isticmaalayo isku darka tirooyin iyo qoraal tafaasiil ka bixinaya cidda soo heshay meydka, meesha laga soo helay, iyo goorta la soo helay. Sumadda waa in lagu qoraa khad aan tirmaynin oo ku dul qoran jaan aan biyuhu ka gudbin, laguna dhejiyey anqowga ama curcurka meydka, iyadoo la isticmaalayo xarig aan ciiddu cunaynin ama xarig caag ah. Sumadaha waa inay ahaadaan kuwo si cad dhammaan sawirada looga akhrin karo, iyo sidoo kale in si taxaddar leh loogu diiwaan geliyo foomamka macluumaadka meydka. Sidaad arki karto, waxaa muhiim ah in uqoondeynta saxda ah ee degdega ah ee sumada gaarka ah ee meydka